الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بمعد إسكالي معنتا وحان ربا إنان كدو ميشان كلب ير أو قابن أو محاضرة ير أو قابن أو كيف تعامل المسلمين مع أوبية في مراحل تاريخه. sidee muslimiinta ay ula macaamileen ama sidee ula dhaqmeen ama sidee maartay u badbaadeen cuduradii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dunida islaamka. Sida ay qorayaan taariikhyahano badan oo ka mid yahay Ibn Battuta, oo ka mid yahay Maqrizi, oo ka mid yahay Ibn Kathir, oo ka mid yahay Abdulatif al-Baghdadi, oo ka mid yahay Ibn Rushdi kitaabkiisa la yiraahdo Naazilada, kitaabu Naazila. Waxay wax badan ka hadleen ay soo qaateen masiibadii iyo dhibaatooyinkii ama daacuunkii ka dhacay dunida islaamka marka ayagu aad ugu xeel dheeraaday. Marka waxaan rabaa inaan soo qaato wax yar oo ka mid ah ama afar ka mid ah cuduradaas waaweyn dunida islaamka ka dhacay iyo xilliyadii ay dhaceen. waxaan ugu horeysiinayaa daacuunka la yiraahdo ama daacuun al-Amawas la yiraahdo. wuxuu dhacay taariikhda hijriyada markay ahayd 18 hijriyada 600 ama 693 miilaadiga. Amawas waxa weeye magaalo yar u dhaxayso Bayt al-Maqdis iyo Ramallah ee Falastiin. haddana maartay magaaladaas waxaa qabsaday oo baabi'iyay Israa'iil. marka daacuunkaas marka wuxuu ahaa xilligii Umar bin Khattab radiyallahu anhu. daacuunkaasi waxaa dhibaato badan buu geystay oo dad muslimiin ah oo lagu qiyaaso 30,000 oo qofood inay ku dhimatay. weliba waxaa ka mid ah dad waaweyn oo ajilla ah oo aad u waaweyn oo asxaabi rasuulillaahi ka mid ah. waxaa ka mid ahay Abu Ubayd Amir bin Abi Jarrah iyo Mucaad bin Jabal iyo dad badan oo waaweyn oo muslimiinta ka mid ah. waxaa ku xigay daacuun kale oo la yiraahdo daacuun al-Jaarifa la yiraahdaa. taariikhdiisa waxay ahayd 69 hijriyadii ama 688 wuxuu ka dhacay Basra. xilligaas waxaa muslimiinta xukumayay Abdullah bin Zubair baa xukumayay. maxaa loo yiri marka daacuun al-Jaarif? maxaa loo yiri daacuun al-Jaarif? waxaa loo yiri sida daadka oo dhagxaanta iyo carrada u jiido oo uu maartay u kaxeeyo u wato ayaa dadka maartay dhan ay wada dhamaadeen. jarafa macnaha ma garatay oo waa jiiday oo dadka way baaba'een saas waaye. marka daacuunkaasi waxaa la leeyahay isagana wuxuu ka dhacay Basro, muslimiintana dhibaato badan oo iyuu gaarsiiyey. marka daacuunka isaga ah hadda aan soo sheegnay oo daacuun Jaarif la yiraahdo xilligaasna dhacay. waxaa ku xigay marka daacuun la yiraahdo daacuun al-Fatayaat wal Ishraaf. wuxuu dhacay 87 hijriyadii ama 605 oo miilaadiga. marka daacuunka marka Fatayaat waxaa loo yiri gabdhaha ayaa loogu magac daray oo markuu cudurka wuxuu ku bilaabanayaa dumarka ragga intuusan ku dhicin ka hor. haddana waxa uu ku dhacayaa dadka waaweyn oo sharafta leh oo sida culimada iyo dadka madaxda intaba. daacuunkaas marka isaga dhibaato badan oo muslimiinta u geystay. waxaa yacnaha runtii daacuunadaas waxyaalaha ay dhaceen mulaaxadeeyeen waxaa ka mid ah dadka islaamka muslimiinta Basra kale. hadda markuu daacuunkii Jaarifka ka dhaco kale nin muslimiinta ka mid ah inay caruur ka dhimatay ilmo ka dhinteen. marka dad buu u kareeyo dadka ii duuga meydkan. marka meydkii waa la qaaday ilaa 10 qof ilaa 7 qof qaaday. xawaalkii waxaa ka tegay hal nin, inta kale dhaxday ku dhamaadeen. marka waxaa kaloo ka mid ah daacuunka dhibaatada weyn geystay. waxaa ka mid ahay daacuunka la yiraahdo Muslim bin Qutayba oo dhacay 131 hijriyadii ama 748 miilaadiga. Basra ayuu ka dhacay. waxaa la leeyahay daacuunkaasi wuxuu socday 3 beri ayuu socday. marbadka ama meelaha maartay masaajidda meydka lagu dhaqay iyo meelahaas waxaa la keeni jiray maalinkiiba 1000 jinaasa ka badan masaajidda Basra la soo xaadirin jiray. qalqi fara badan ku dhintay. marka afartaas daacuun ayaan ku soo koobayaa dhibaatooyinkii ka dhacay dunida islaamka.
maanta marka waxaa la leeyahay saamaynta uu yeeshay daacunadaas ayaa rabaa haddana inaan in yar aan maaragtay ka bidhaamiyo daacunada iyo sidii loola tacaalay. cumar bin khadaab radiallahu canhu wuxuu ula tacaalay asbaabta ayuu qaatay horta marka koowaad. marka labaad wuxuu sameeyey waxa la yidhaahdo xijru sixi waxa hadda u naqaana ama karantiilka oo meeshuu daacuunka uu ka dhacay oo shaam ahayd inaan la geli karin lagana soo bixi karin. waxaa kaloo ka mid ahay abu cubayd camir bin abi jaraax inuu amray dadka inuu ka saaro meeshay maaragtay cara madowga ah maaragtay caradeeda boor kale inuu ka saaro u saaro dhulka kuleylka oo buuraha ah. iyo midda kale ee waxay dadka inay muslimiinta ilaahay baryaan oo ilaahay loo tawba keeno oo maaragtay salaadihii ilaahay la baryo taasna waa waxaa marka asaarta u yeeshay ama saamaynta u yeeshay waxaa ka mid ahayd inay ku dhinteen meesha dad waaweyn oo ajilo ah oo saxaabadii ah dadkii inay aad u yaraadeen culimadii inay aad u yaraaday dad sababtoo ah dadka culimmada ahaa iyo dad sharaf leh iyo dadka hogaamiyaasha ahaa ayaa meesha macnaha ma garatay. waxaa kaloo ka mid ah tuulooyin dhan iyo deegaano dhan wax dega in la waayey sidaa daraaddeed dalagyadii beeraha iyo xoolo dhaqanaya iyo wixii oo idil inay aad u yaraadeen. waxaa kaloo ka mid saamaynta u yeeshay waxaa ka mid ahaa runtii deegaanka ikhtilaad inuu dhacay oo khalal uu dhacay deegaankii oo burbulaan badan uu ka dhacay sida dadkii aad u yaraaday xirfadihii oo maaragtay dadkii xirfadaha yaqiino dhammaaday waxyaalahaasoo idin marka waxyaalaha marka saamaynta yeelan karo hadda coronaviruskan waddankeena ka dhacayo dunida islaamka cuduradii soo maray waxaa kaloo dhanka cibaadadoo kale inay dhibaato ay sameeyeen. hadda coronavirusku waxaa la leeyahay ama covid-19ka xajka sanadkan lama aadayo marka taasaan rabaa inaan waxyar iyadana ka bidhaamiyo culimada islaamku waxyaalihii ay ka qoreen. waxaa jirta horta ugu yaraan 40 mar ayaa la sajilay maaragtay diiwaan gashan siday masaadir rasmi ay sheegayso inuu xajku la aadi waayey sanadahaas asbaab abni iyo asbaab cudur iyo dhaqaale yari iyo intaba marka la isku keeno 40 mar baa xajka baaqday oo xujayda ay xajka aysan aadin. waxaan rabaa marka 40kaasi qaar ka mid ah inaan waxyar ka sheego 2 iyo 3 anoona badinaynin. waxaa ka mid ah marka niman la yiraahdo qaraamada ayaa waxa qabsaday taariikhda markay ahayd 317 miilaadiga ayay waxay qabsadeen meesha la yiraahdo xaramka ayay qabsadeen iyo dunida islaamka ciraaq iyo shaam iyo dhulkii oo dhamay maartay qabsadeen. dhibaato badan ay u geysteen xujaay badan ay ku laayeen xaramka dhexdiisa iyagoo leh aaway asxaabul fiil dadkii laayay aaway mudiraashii wixii laayay aaway xujaayda marka ilaa 30,000 ayaa lagu tiriyaa inay ku laayeen xujaay meeshaas. intaas ugu masiharina dhibaatada haddana waxay sameeyeen waxay qaateen xajarul aswadkii qaateen waxayna geeyeen gobolka Ihsaa la yiraahdo oo hadda u dhaxeeyo xuduudda Sacuudiga iyo Bahrayn. waxay la maqnaayeen sida masaadirta qaarkood ay sheegayso 10 ama 22 sano laakiin waxaa xoogan mid 22 sano inay la maqnaayeen. waxaa kaloo jiro cudur asagana oo wabaa ah oo Maka ka dhacay taariikhda markay ahayd 350 iyo 7 hijriyada. xanuunkaas waxaa la yiraahdaa ama cudurkaasi waxaa la yiraahdaa wabaa mashri ayaa la yiraahdaa. waa xanuun shuban ahay oo aad u dhibaato badnaay dad badan oo muslimiina ayaa ku dhamaaday oo sanadkaasna maartay xajka markuu ka dhacay Sacuudiga uu ka dhacay ama ka dhacay ardul Hijaaz uu ka dhacay wabaagaasi xajkii waa la joojiyay sanadkaasi lama tagin. waxaa kaloo ka mid ah cudur kale oo xagga iyo Hindiya ka yimid taariikhda markay ahayd 1246 runtii dad xujaay oo fara badan ayaa meesha Mina iyo maartay Musdalifa iyo Carafa ku dhintay. dad kale oo xujaay ahna way xajiyeen laakiin markii xujaayda badankooda markay soo xajiyeen arkaan soo guteen ka dambeey ay dhinteen iyagana. waxaa kaloo ka mid ah marka sanadka markuu ahaa 1837 oo miilaadiga waxaa ka dhacay iyadana xaramka iyo ardul Hijaaz oo kale waxaa ka dhacay cudur ayaa ka dhacay maalintii waxaa la leeyahay meeshaas waxaa ku dhimanaysay 1000 xaaji waa ku dhimanaysay sida masaadirta Anadol iyo Turkiga ay qorayaan xilligaas marka isaga ah
marka waxaan rabaa marka ugu dambeyn dunida islaamka iyo caalamka guud ahaanba waxaa faraba aan ku hayo cudurkan safmareenka ah ee COVID-19 la yiraahdo ama coronaviruska. runtii horta waa cudur ilaahay uu keenay oo dadka muslimiinta ah lagu imtixaamayo, dadka gaaladana maaragtay lagu jarrabayo. marka waxaa rabaa dadka mu'miniinta ah inaan tala yar aan u soo jeediyo. talada koowaad waxaa weeye talaabtii ay u qaaday Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu oo ah maaragtay inaan la isku soconin oo safarka iyo waxyaalaha la joojiyo oo karantiilka ama xijru sixi wixii loo dhihi jiray la dhaqan geliyo. qodobka labaad waxa weeye in la yeelo bahda caafimaadka talooyinka iyo dhaqaatiirta ay bixinayaan in la qaato oo la yeelo. qodobka saddexaad oo soo jeedina waxa weeye in ilaahay loo tooba keeno, sababtoo ah waxa weeye dhibaato markay timaado ilaahay baa keenay, ilaahay baana qaadi karo. dadka muslimiinta marka waxaa la rabaa meel walbay joogaan, hadday keli yihiin iyo hadday jamaaco yihiin, inay duceystaan oo ilaahay baryaan in ilaahay masiibadan oo maaragtay uu ka dul qaado oo ilaahay maaragtay muslimiinta badbaadiyo. qodobka ugu dambeeya waxa weeye ilaahay in lagu kalsoonaado oo ninkii ku dhinto oo muslim ah coronaviruskan iyo cuduradaas oo kale waa shahiid. marka ilaahayna lagu xirnaado, masiibadana ilaahay inuu naga dul qaado ilaahay aan ka barino. marka kelmadayda intaasaan ku soo gaabinayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.